gabadh ama wiil qof walba oo doonaya inuu guursado waxa uu leeyahay dooq u gaar ah. Gabdhaha qaar isku dooq way noqon karaan halka qaarka kale ay ka duwan yihiin. wiilashana sidoo kale. Haddii aan tusaale u soo qaato 3 ku saabsan dooqa ragga iyo 3 ku saabsan dooqa dumarka, aan ku bilaabo ragga. Raggu waxay jecel yihiin inay dumarka ka helaan 3dan dabeecadood: gabar dhowrsan misana asturan, gabar afgaaban weliba xishood badan, gabar leh dhaqan wanaagsan iyo dabeecad degan. Dumarkuna waxay ka sameyn yihiin ragga inay ka helaan 3daani dabeecadood: nin naxariis badan misana ugu taxadira sida gabadh uu dhalay oo kale, nin dulqaad badan oo haddii la isqabto noqda kii u sabra xaaskiisa, nin xushmad badan oo xaaskiisa u qadariya sida hooyadii oo kale. Intaasi waxay ahaayeen waxay ka wada sameyn yihiin ragga iyo dumarka. Haddaba aan guda galno sheekadeeni ahayd gabadhii tiri waxaan doonayaa wiil diin leh. Waxay ahayd gabar aad u qurux badan, ahlu diin ah, laakiin waxay doonaysay wiil si fiican diinta u yaqaano. Waxay tiri waxaan guursanayaa wiil maalin walba qur'aanka akhriya, sanadka oo dhan soomaya, habeen iyo maalin xusuustii alla afka ku haynaya. gabar aad u qurux badan ayay ahayd. wiilal badan way doonayeen inay guursadaan, laakiin way ogaayeen wiilashaasi in ay samayn karin sida ay dalbatay. Kadib ayaa wiil u yimid kuna yiri waxaan ka soo bixi karaa waxaa dalbatay. Isla maalintiina labadooda waa laysku guuriyey. Aroosku markuu maalin 3aad marayo, gabartii waxay aragtay inuu ninkeeda aqrinin qur'aanka, xitaa inuu soomin iyo inuu habeenkii saqda dhexe soo kicin si uu ilaah ugu cibaadaysto. Kadib waxay tiri bal sug hal isbuuc kadib haddii uu isbedelayo, laakiin wax isbedelitaan ka muuqdo ma aysan arkin. Markaas ayay xanaaqday, kadibna dalbatay in uu furo. Labadii isqabay baa imaamkii isku daray u yimaadeen. Markaas buu imaamkii weydiiyey ninkii maxay ahaayeen shuruudda arooska. Ninkii baa ku jawaabay waxay ahaayeen in aan qur'aanka akhriyo, maalin kasta inaan soomo sanadkii oo dhan, iyo inaan habeen iyo maalin ilaah caabudo xusuusnaado. Markaas buu imaamkii ku yiri ma fulisay intaasi shuruud? Kadib ninkii isagoo degan ayuu yiri haa. Imaamkii baa yiri been, naagtaadii waxay igu tiri ma aadan samaynin, sidaas awgeed ayay furitaan ku dalbatay. Kadib ayuu imaamkii mar kale weydiiyey qur'aanka ma akhrisay? Ninkii ayaa ku jawaabay haa. Markaas buu imaamkii yiri sideed baad u akhrisay? Markaas buu ninkii yiri waxaan akhriyay suuratul iqlaas 3 mar maalin kasto. Wuxuu u raaciyay nabigeena sallallahu calayhi wasallam ayaa yiri akhrinta suuratul iqlaas 3 mar waxay la mid tahay adigoo qur'aanka dhan akhriyay. Imaamkii indhaha ayuu taagay, kadib ayuu yiri haye sidee baad ku soontay sanadka oo dhan? Ninkii baa ugu jawaabay waxaan soomay ramadaanka oo dhan, kadibna 6 beri ku xigta ayaan ku daray ee bisha shawaal ee wadaca. Wuxuuna u raaciyay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofkii ramadaanka dhammaysto oo 6da shawaal ku daro wuxuu la mid yahay isagoo sanadkii oo dhan soomay. Imaamkii wax ugu jawaaba ayuu waayay, ileen wax qalada ma uusan sheegin. Kadib buu haddana weydiiyey sideed baad habeenkii oo dhan ugu soo jeeday oo ilaah u xusaysay? Ileen waad hurdaysa ayay igu tiri xaaskaaga. Imaamkii wuxuu isdhahay kama jawaabi karo, laakiin ninkii si degan ayuu haddana ugu jawaabay. Wuxuuna ku yiri waxaan jamaaco ku tukaday salaatul cishaa, kadib maalin kale waxaan jamaaco ku tukaday salaatul fajr. Wuxuu u raaciyay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofkii salaada cishaa iyo fajarka jamaaco ku tukada waxay la mid tahay isagoo habeenkii oo dhan soo jeeday oo ilaah caabudayay. Markaas buu imaamkii ninkii fiiriyey isagoo yaaban kuna dhahay naagtii iyo ninkii baxa, ilaaha idiisku kiin barakeeyo, arooskan wax ka qaldan ma jiraan. Sidaas ayayna gabadhii ugu qanacday ninkeedii. su'aal dambena dib dambe ma aysan u weydiinin. Haddaba sidaasi awgeed isku day inaad ilaashato oo aad ku deganaato diintaada, dhaqankaaga iyo dabeecadahaaga wanaagsan, waayo adiga ah qofka kaliya cid kasta oo baadigoobayso raadinayso inay xiriir la samayso.